السلام عليكم. أهلا بدي سلام يا ملك استجوكتان. waxaa jiray buug su'aal liiga soo weydiiyay buug hibooyinka sheekeynaya bari dhexdeer oo aan bari dhexdeer duubay marka waxay leedahay su'aashu sidee baan ku ogaan karaa hibadeeda ama waxa aan hibada u leeyahay waxa jirta hab uu qofku ku ogaan karayo waxa uu ku fiican yahay ama hibada u leeyahay iyo wali waxaan ku fiicnayn si guud xitaa oo dabeecadiisa qofku u yahay oo ugu baran karo waxa jirta wax la yiraahdo Johari Windows daaqadaha Johari oo laba nin oo psychologist ah oo Mareykan ay 1955 abuureen waxa la kala oran jiray Joseph Loft iyo Harrington Ingham marka Joseph kii iyo muxuu ahaa Harrington kii ayaa la isku kabay oo marka laga soo dhex saaray Johari marka waxay leeyihiin qofku waxa jira afar daaqadood iska ogaan karayo daaqada koowaad waxa weeye the open window waa daaqada furan oo waxa adigu aad iska taqaano dadkuna ka yaqaanaan inaad fagaara ka hadal ku fiican tahay ogtahay dadkuna xoog yihiin ee fagaara ka hadalka aad ku wanaagsan tahay habka ugu horeeya aad ku ogaan karto waxa hibada u leedahay waxa weeye inaad isqarin waranta soo qaadato aad isweydiiso waxa aad isogtahay inaad ku fiican tahay dadkuna ay kugu yiraahdaan waad ku fiican tahay habka labaad aad ku ogaan karto waxa weeye inaad isweydiiso oo aad qorto waxyaabaha adigu aad ku wanaagsan tahay dadku si aanay ka ogeyn lagu soo qaadan karaa Nabiga Yuusuf alayhi salaam markuu xabsiga ku jiray wuxuu iska ogaa aqoon u lahaa inuu dhaqaalaha iyo sida loo maareeyo uu ku wanaagsan yahay laakiin dadku ma ogeyn sida daradeed wuxuu sameeyay isaga soo bandhigay adiguna waxa wanaagsan inaad waxaad soo bandhigto aad la wadaagto dadka aan ka ogeyn arinta sida hadaad wax qori karayso hadaad wax abuuri karayso wax ka soo dadku aanay ka ogeyn inaad la wadaagto dad kuwa ehelka iyo asxaabtaada iyo in adigu soo bandhigto wixii adigu ku qarsoonay dadku aanay ka aqoon si feedback aad uga hesho deetan wixii aad u sii horumariso habka saddexaad aad ku ogaan karayso waxa weeye waa waxa ka qarsoon marka hore waxaan ogaanay inaad ku ogaan karayso waxa adigu aad iska ogtahay dadkuna ay ka ogyihiin waa daaqada furan daaqada labaadna waxay nidhi waxa weeye wax adigu ku qarsoon dadku si aanay ka ogaanay tahay inaad soo bandhigto daaqada saddexaad waa wax adiga ka qarsoon yaa jiro waxyaabo fara badan oo aad hibo leedahay laakiin adigu aad iska ogeyn taa waxaad marti uga tahay dadka kale ehelkaaga asxaabtaada macallimiinta dadka aqoonta ku leh hadaba sidee ku ogaan karaysaa dhowrkan talaabo qaad ta koowaad bartilmaamso dad aad isleedahay aqoon bay ku leeyihiin aad guri ku soo wada korteen aad muddo wada joogteen oo wada macaamisheen macallimiintaada asxaabtaada dadka ka bartilmaamso ilaa 7 deetana midba si gooniyo ula kulan oo weydii waxa uu isleeyahay inaad ku wanaagsan tahay iyo wali waxaanad ku wanaagsanay waa labadaba inaad ogaato u baahan dadka su'aasha weydiinaysan wadada isleedahay way ku hagar baxayaan runtiina si wacan wax badan aad isku ogeyn baad ku ogaanaysaa habkana waa hab kale aad ku ogaan karayso waxa aad hibada u leedahay saddexda daaqadood hore waxaan ku soo tilmaamay daaqada furan ee aad iska taqaan dadkuna ka yaqaanaan ta ku qarsoon aanay dadku ka aqoon iyo tan adiga ka qarsoon dadka ka yaqaanaan daaqada afraadna waxa weeye waa waxa adiguna aad iska aqoon dadkuna ay ka aqoon dabcan inta aad nooshahay waxa jiraya wax aadan iska aqoon dadkuna ay ka aqoon sida ugu wanaagsan ee aad wax badan oo waxa aadan iska aqoon dadkuna ka aqoon aad ku ogaan karayso waxa weeye inaad istijaabiso oo waxyaabo badan isku daydo oo aad waxyaabo badan tijaabiso sababooyinka ugu badan ee lagu ogaado qofka waxyaabaha aan iska aqoon waxa weeye waxa kamid ah akhriska waxaad ku ogaanaysaa waxyaabo badan oo aadan iska aqoon waxa kaloo kamid ah safarka iyo inuu qofku isku dayo waxyaabo kala duwan oo aan hore u sameyn jirin safarka iyo akhriska waxay ugu horeeyaan waxyaabaha qofku isku baran karayo uu ku ogaan karayo interestkiisa iyo passionkiisa iyo hibooyinkiisa marka waxa ku qasbaysaa inaad comfort zone maadaama aanay cidna ka aqoon waxyaabo badan adiguna aad iska aqoon isku day inaad comfort zone ka baxdid oo aad waxyaabo badan oo hore aadan u sameyn jirin aad tijaabiso waxaan isleeyahay qofku hadduu qoro waxa isagu iska yaqaan dadkuna ay ka yaqaanaan koow daaqada furan waxa isaga u qarsoon dadku aanay ka aqoon oo isna uu soo bandhigo daaqada saddexaad oo ah waxa isaga ka qarsoon oo dadka martida uga yahay inuu weydiiyo waxa isku waafaqaan inuu ogaado inay tahay waxa uu ku fiican yahay iyo tanafaraad oo ah qofku hadduu saddexda horeba aanu ka dhexelin waxa uu ku fiican yahay inuu waxyaabo badan isku dayo oo tijaabiyo